أبتر صدا حسين بن علي رضي الله عنه وحنو شيغي إنه تيم ودياريان تاريخ هاي السوق تيم كاسيو تعب الدور ما ها أتسيبكني وتاريخ دي أردنوي وحنو شيغانين أي جران ماركتي قوليان كله oo iyaguna reer isxaaqa oo dhulkan carabaha iyo meelaha jooga oo saddex kale ay jiraan waa la qaadanay waana bogaadinay in taariikhdii wuxuu noo sheegay in ay intaas oo makhduudaadku waxa weeye waa kutubtii gacanta lagu qoray aan daabacnay oo loogu talagelayo tiim dhan makhduudaadka la ururiyo oo loogu talagelayo haddana tiim dhan oo nooca makhduudka akhriya inay akhriyaan oo baadhaan oo wixii saxsaxa ama inaga ama kuwii kale u dhalay ama taariikhdiisa quseeya ay banaanka soo dhigaan markaa kadib in tiimka mudaqiqiinta xagga luqada loo geeyo oo dib jeekin markaa taariikhda la jeekibo dabeetana iyadoo kutuba oo kaamila oo qaraabooyinkiisii iyo dhulkuu maray iyo ehelkiisii iyo taariikh iyadoo kutuba oo markaa lasoo diyaariyo oo dabeetana la daabaco waxaan ballan qaadnay annaguna wixii maadaama taariikhda ay niyad tahay wixii loo baahdo wixii nagaga soo hagaagay inaanu diyaaru nahay ballan qaad waxaan kaloo idin sheegaya waxaa la hayaa imika qorani tuxfatulmusaaq oo qoran maaha waxaa la hayaa nin le sheekh isxaaq maamad ugu tegay oo qoray kitaab oo kiisii oo qoran baa la hayaa waxaa la hayaa kuwa rag masaariya ay qoreen oo aanay weli mid qura ahayn oo risaalada baa la hayaa ninkaasaa filayo qirbaaniga ninkaale sheekh isxaaq baa arkay cid maaragtay dee isagu waxa waa sanad cali marka